qabriguna marka uu hadlayaa wuxuu leeyahay anu gurigii keliga ayaan ahay anu gurigii darxiga u saaxiibka ahaa baan ahay anu gurigii madoobaa baan ahay waxaad iga shaqaysato oo baad isoo dhiganayso iga heli doontaa وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعقا أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حمدا لله إلهي لكم هذا لنا مساجد جامعة إن نسوق المياه والله كل يوم وحن دوننا ما ركتنا إلهي ندوان أئمتنا يا علماءنا أخيارتا يا خير كبدل مساجد كاي نغو سو دويسay iyo majmaceena barakaysan keena hadlaaya iyo keena la hadlaaya inteenu waxaan u baahanahay ilaahay inuu dhawaan yani ilaahay u dhawaano oo aakhiradeena u diyaar garowno oo adduunyadana ka qaadana diin waxaan ahay ninka ka qaata u khasaaray nolosha adduunyadu way bilaabantaa wayna dhammaataa ilma dhashay haddaad maqasho noloshii adduunyada ayaa u bilaabatay hebel u dhintay haddaad maqashana noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay aakhiraduna way bilaabantaay iyadu dhammaad ma leh haddaad maqasho hebel u dhintay noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay aakhiradii weyna ka badnayd baana u bilaabantay hebel baa go-ay inaku markaan maqalla markaaba waxaa la isweydiiyaa daday adduunya muxuu ka tegey caalamka samada dadka khalqiga ku noole malaa'igtu waxay isweydiiyaan hebel maxaa ka soo horreeyey inaku markiiba waxaan isweydiinaynaa markaan maqalla hebel baa go-ay muxuu ka tegey laakiin malaa'igtu waxay isweydiinayaan maxaa ka soo horreeyey nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waa kay noo sheegay lahaa maydka marka la qaadayo buu nebigu leeyahay degta la saarto ee nacashka la saaro nafta la sii wada hadday ahayd naf wanaagsan oo ilaahay taqaana oo adduunka dusheeda ilaahay amarkiisa qaadatay hadday ahaydna waxay leedahay anwalli baanay horay iigeeya bay leedahay qabrigeyga horay ii dhiga haddii nafta la sii wada ay ahayd naf badan oo xun oo mujrimada oo dembi badan oo shar badan hadday ahaydna waxay leedahay tani way khasaartay halkee baad ku wadaa hadalka naftaasi ay leedahay cid kasta ayaa maqlaysa buu rasuulku yidhi ilaa jinkiiyo insiga un baanan maqlayn hadday labada la maqashiin lahaana dadku ismay aasayna way argagixi lahaayeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maanta waa adduunya berri waa aakhiro weeyaan maalin buu nebigu arkay saxaabadiisa iyagoo meel fadhiya oo sheekaysanaya laanna saxaabadu bashar bay haayeen cabdillaahi bin cumar binu khadaab baa lagu yidhi asxaabta nebi maxamed bay qusli jireen way qusli jireen buu yidhi laakiin iimaanka qalbigooda ku jira ayaa buuraha ka weynaa buu yidhi malaa'ig may hayna bashar bay haayeen sida innagu aan u shaqaysanayeen sida innagu reereeyo u badan u leenahay si ka badan bay u lahaayeen laakiin qulubtooda waxaa ku weyneyd ilaahay baa ku weynaa diinta ayaa ku weyneyd aakhirada ayaa ku weyneyd maalin maalmaha ka midu nebigu arkay jamac asxaabtii ka mid oo meel iyagoo fadhiya marka ay sheekaysanayaan oy dhoolla caddaynayaan qusquslayaan markaabuu nebigu ku yidhi low aghartu dikra haadimi laddaat la shaqalakum cama araakum canhu yacni almowt haddaad macmacaan dumiyaha xasuustiisa iyo sheekadiisa aad badsan lahaydeen buu nebigu yidhi qosolkaa aan nagu arkaayo waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam asxaabtii nebi maxamed ay u baahdeen mar walba inuu nebigu dul joogo uu ilaahay xasuusiyo uu dhimashada xasuusiyo uu aakhirada xasuusiyo innagoo maanta zamankan joogna zaman alfitan zaman fitanta iyo mashaakilka ay bateen iyo fasaadku meel walba uu yaallana inteen uga baahi badannahay asxaabtii nebi maxamed in mar walba layna xasuusiyo ilaahay la kulankiisa aakhire inay jirto in lagu xasuusiyo inuu qabri kaa dambeeyo in lagu xasuusiyo wa
iyo sheekadiisa qosolka aan lagu arkayo buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maad haleesheen maanad qosasheen waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waagii barye iyo gabalkii dhacaba maalin kasti waxa uu bini aadamku u sii dhowaanaya waa qabriga weeyaan qabriguna marka uu hadlayaa wuxuu leeyahay anu gurigii keliga ayaa nahay anu gurigii darxiga u saaxiibka ahaa baan ahay anu gurigii madoobaa baan ahay waxaad iga shaqaysato unbaad isoo dhiganayso iga heli doontaa nin reer madiino ansaariya janaasadiisii buu nebigu raacay calayhi salaatu wasalaam markii qabrigii la geliyey iilka la duldhigay ayuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tathbiit fainnahu al'aana yus'al buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaalkiin ilaahay dembi dhaaf u weydiiya su-aashii qabriga hadda la weydiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugana ilaahay u weydiiya haddaa su-aashii qabriga la weydiinayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo su-aasha qabriga waa maxay waa saddexdaa su'aalood weeyaan man rabbuka man nabiyuka maa diinuka mar alli marka qofka innagu aan dhigna qabriga een ka imanno ka u dambeeya ka soo dhaqaaqaya shaqadhiisa la maqashin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba malag baa u iman doonta alfataanaan deedna way fadhiisinayaan qofka saddexdaa su'aalood bay qof walba weydiinayaan hadduu boqor yahay waa la weydiin hadduu caalim yahay waa la weydiin hadduu maaragtaane weli yahay waa la weydiin hadduu faasiq yahay waa la weydiin bashariyadda adduunyada ku nool oo dhan saddexdaa su'aalood waa nala sugi doonaa man rabbuka ayaa ku rabbaynayey ayaa ku quudinayey ayaa ku arsaaqayey ayaad caabudaysay ayaad baryaysay ayaad rajaynaysay ayaad tala saaranaysay maa diinuka diintaadu maxay ahayd dhaqankaagu muxuu ahaa maxaad dhaqan ka dhigatood ku dhaqmaysay man nebiyuka ninka laynaga soo dhex saarayna maxaad u taqaanay marka qofkii muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanayey ee iimaanka qabay ilaahay baa yuthabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi alxayaati addunya wa fi alaakhira ويوم يقوم الأشهاد إلهي تبارك وتعالى قفك مؤمنك إيمانك قبا صدح ذا سؤالات قبرك قفل بلغوي دينيو إلهي بقفك مؤمنك كسب دونه إلهي بس جوابته حليشين دونه ولا رجل إلهي نحن نقصه الله نقصه الله نقول بيري صدح ذا سؤالات قفل سلوي دين دونه مركا مؤمنك أدوية دوشير إلهي كقبا قايل إلهي ما دركني لكن رماه مخلوقا كون موضة مخلوقا دركيسا لكن خالقا لما أركا دونك انت اللجوء جركا دركيسا لكن روح لما أركو الدوية دركيسا لكن آخرة لما أركو انت دونك اللجوء منافع العقد دركيسا لكن منفعات الصلاة هي منفعات الثواب كما أركيس وغيب آخرة طالب وتصل دونه شيء كما أنت مشاهدات كإنه موضة أي حد وطول نقول دون مغيبات وحكام صويب نقول دون شيء الغيب كما أنت كان صون وحول نقول دون وحول تالي ما ضد أركت أي نقول دون ما أنت أدوية إنه موقت آخر إنه موقته لكن قفوا مركو أدوية كي تزالون دينتو لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غضاءك فبصرك اليوم حديد وحل أرندونا داهي حجاب يا كاسرنا نرشد لكن ما أنت داهي حجابك كاسرنا وكاقادني أرقاك وحديد بغفق الله أرندونا وأدوية بان نقول دونتا مش غيب نقول دونتا عيال كيسي كبر كيسي داري كيسي أدوية كيسي يلعب كيسي ولا قريني دونا وحمرك واركي دونا عمل كي أدوية وصوقبتي هدو الشر أهانا وحواركي دونا عقوبتي سي عردي سي هدو عقوبتي إلهي عردي بأركيا هدو خير أهانا ثوابكي أجركي خيركي حسناتكي بأركيا الدنيا دي وحين نقوليسا وحكاكر صومي آخرة دي نحكم وقتين نقول دوتا مركز مركا إلهي تبارك وتعالى أدونك إنت عن جوغل لما أركي كرايو لكن آياتك إلهي بالأركيا ومن آياته الليل والنهار حبينك آيات ويان آيات ومحن معنيه وعلامة إلهي جريتانك سلقو قرانايو مالنت وعلامة إلهي جريتانك سلقو قرانايو guga iyo jiilaalku waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo noloshiyo geeridu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo labiyo dhidigu waa calaamo jiritaanka ilaahay lagu garanayo faqriga iyo qinadu waa calaamo ilaahay lagu garanayo jiritaankiisa caalamkan siduu u socdo waxaad ka dhex arkaysaa in ilaahay nidaamkiisu caalamka u shaqaynayo laakiin nidaamka ilaahay caalamkan uu ku maamulayo waa nidaam qayba waa laynaga qariyay ma arki karayno sida ruuxda jirka ku jirta ishaadu aysan u arki karaynin gacanta dhaqdhaqaaqeega aad arkaysaa dhegta maqalkeega aad arkaysaa lugta socodkeega aad arkaysaa
madaxa dhaqaaqiisa aad arkaysaa laakiin ruuxda bini aadamku ma arki karaa laakiin gaal iyo islaam halka markuu qof ka dhinto intuba qofkaa ka dhintay wuu u weyaan haddaad tidhahda maxaad la ooyi waaga qofkii gacan kama gu'in lugna kama gu'in dheg lagama goosan oo dhan yahay jidhkiisii oo dhan uu dhan yahay maxaad la ooyi haddii la yidhaahdana kulligood waxay leeyihiin shaygii qiimaha lahaaba meesha ka baxay shayga qiimaha la waa maxay waa ruuxdii oo ruuxda maad aragtay may si aad u garanaysaa qalbiga ayaa garanaya alqalbu yudriku alxaqaa'iq bay yidhahdaan culammadu qalbiga ayaa xaqiiqada soo taabanaya shaygii qiimaha lahaa waa ruuxda weeyaan ruuxda waa qayb waa lagaa qariyay ma arki karaysid laakiin inay jirto waxaad ku garanaysaa xarakaat alacdaa caalamkan aad arkayso dhan waxa weeyaan waa kaljasad weeyaan nidaamkan caalamka oo dhan waxaa ku hoos jira nidaamka ilaahay iyo nidaamulqayb la yidhahdo marka muuminkii iimaanka qabay intuu adduunyada joogay buu ilaahay cilaaqa la lahaa su-aasha u horraysa marka la yidhaha man rabbuka waxuu yidhi aniga rabbigay waa allah buu leeyahay meheradaydu ima rabbaynay allah baa i rabbaynayey dukaanku ima rabbaynay ilaahay baa i rabbaynayey beertu ima rabbaynay ilaahay baa i rabbaynayey dowladdu ima rabbaynay ilaahay baa i rabbaynayey xooluhu ima rabbaynay ilaahay baa i rabbaynayey anu kuma noolayn waxaan adduunyada dulyaalloo dhane bal amarka ilaahay baan ku noolaa laakiin su-aasha dadka maanta haddii magarafoon la qaato la yidhahdo maxaad ku nooshahay nin walba halka ay asbaabtu ay ka soo gasho dakhligiisu halkuu ka soo galabuu markaaba kuu sheegay mid muxuu ku odhan wallaahi meherad yaroo halka ku taallaan ku noolahay mid wuxuu ku odhan ciyaalkiibaa dibadda u baxay oo kuwaasaan ku noolahay haddayna baxeen maba noolaaneen mid muxuu ku odhan beer yar baan ku noolahay beer mid wuxuu ku odhan aqal yar baan noo karaysan oo ku noolahay reer jibuutina waxay yidhahdaan letaraadkii baan ku noolay letaraadkii macaashkii may waa inaad tidhaahdaa ilaahay amarkiisaan ku noolahay annagu الذي يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني وأصول الإيمان أصول العقيدة وإن قفك قرطا دوده هذا استعمال يسو شفاء الله ما السعطه شفاء حق إلهي بكتم هذا دكان قاقين مهرد هذا يسوق قاقا وأسباب وإياه لكن رزق حق إلهي بكائمنا إياه وإن أذكرت ربك هو الله وإياه معبود هو إلهي وإياه كعبادة متيستوى إلهي وإياه كبرية متيستوى إلهي وإياه كالرجاء متيستوى إلهي وإياه كعبسة متيستوى إلهي وإياه كليجي رجاء كليجي كعبصو كليجي بريو بعد هذا كليجي مشهور ربك هو الله دين تيدنا الإسلام نقم كيك هو إسلام وحكى لعنكم النقم وحكى لما أمسن دين بانو نولحي دين بان برانيا دين بان كشقينيا وفك دين بان كجعلانيا دين لأنا وكنا عيا من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإمام رسول كويري نيكا هدوح بحن إلهي درتي أبحن هدوح منعن إلهي درتي أمنعن هدوح جعلان إلهي درتي أجعلان هدوح نعن إلهي درتي أنعن كاس إيمانك وأنا مصدر النبي عليه الصلاة والسلام